ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال ما أنت وحان أبلن in aan soo jeedinno muxaadaradii labaad ee ku saabsanayd quluubta wanaagsan. waxaan horay uga soo hadalnay maalintii dhoweyd qiimaha uu qalbigu leeyahay iyo booska uu ka degan yahay jirka bini-aadamka, cudwi ahaan iyo macnawi ahaan labadaba. waxa aan soo sheegnay waxaan rabnaa maanta inaan ka hadalno quluubtu imise ayay u qaybsamaan, maxaa weeye waa maxay cudurrada ku dhaca, waa maxay calaamadaha lagu garto, waa maxay daawada lagu daaweyn karaa. qur-aanka waxaa ku soo arooray in ka badan 20 cudur oo quluubta ku dhaca. waxaase kaga soo gaabsan doonaa 3 ama 2 ugu muhiimsan ee ugu khatarsan ayaan kaga soo gaabsan doonaa. waxaan u qaybin karnaa marka hore quluubta 3 waaweyn: qalbi saliim ah oo nabadgalay, waana qalbiga keliya ee maalinta qiyaamaha la hubo qofka ilaahay la hortaga inuu badbaadayo. qalbiga labaadna waa qalbi jiran. qalbigaa jiran waxa uu u dhaxeeyaa qalbiga saliimka ah iyo qalbiga dhintay ama qaasiga ah ayuu u dhaxeeyaa, waxuuna marba dhinac ayuu u badan yahay qalbiga isaga ah. haddaba maanta mowduuceenna waxaan kaga hadli doonaa midka ugu khatarta badan oo ah alqalbu alqaasi, qalbiga adag ee kakanaaday ee ama meyidka loo yaqaano. qalbiga isagu jiran waa qalbi marba dhinac u bata weeye, waxaana dhexdiisa ku hardama 2 maado ayaa dhexdiisa ku hardama: maadada iimaanka iyo maadada kufriga, maadada taacada iyo maadada macsiyada ayaa dhexdiisa ku hardama oo mar walba isugu yimaada. haddaba haddii ay xoog badnaato jiradii, ay ka xoog badnaato caafimaadkii, oo macaasida dhankeedii uu u bato oo taacadii ilaahayna uu ka fogaado, wuxuu gaarayaa qalbigaasi inuu gaaro qalbiga qaasiga ah ama meyidka ah. haddiise dhanka caafimaadka uu u bato oo taacada ilaahay dhankeeda uu u bato, wuxuu haleelayaa oo uu ku dhowaanayaa qalbigii saliimka ahaa. qalbigan isagaa ee kan jiran loo yaqaano qalbiga jiran, shaydaanku midka uu ka dhex shaqaysta ee uu aad iyo aad xooggiisa u saaro waa isaga. maxaa yeelay qalbiga saliimka ah xaggiisa ma aadi karo, oo hadduu aado wuu ku holcayaa oo wuu ku gubanayaa. qalbiga qaasiga ah ee dhintayna meel buu ku soo xiray oo shaqo badan ugama baahna. midka uu hawshiisa ka fulinayaa ee weerarka iyo dagaalka joogtada uu ku hayaa waa qalbigan isagaa ee loo yaqaano qalbiga jiran. marka walaalayaal, haddaba qof kastaa wuxuu og yahay, oo welibana gaar ahaan maalmahan uu og yahay, waxaa la yiraahdaa waxa socda cudurka la yiraahdo koronaha la yiraahdo. dadkii oo dhan wuxuu geliyey halac, dadkii oo dhan wuxuu geliyey argagax. war gacmaha iska dhaqa 5 jeer, war meel ha taabanina, war haddii gacmaha sida aan u dhaqanno maalin walba oo aan cudurkaas isaga taxadarka aan ka qabno, qalbigeenna haddii aan u dhaqi lahayn maalin walba, oo markii aan magaalada u soo baxno ee indhaheennu xumaan ay ku dhacaan, ee dhagaheennu xumaan ay maqlaan, marka aan guriga nimaadno haddii aan fariisanno oo aan ilaahay dembi dhaaf weydiisanno oon qalbigeenna dhaqno, waxaan ka mid ahaan lahayn owliyada ilaahay.
dadka oo dhan waxay ka dheregsan yihiin haddaad weydiiso waa maxay cudurka la yiraahdo COVID-19 ama coronavirus la yiraahdo waa maxay si fiican ayay kaaga sheekaynayaan. haddaad weydiiso waa maxay calaamadaha lagu garto si fiican ayay kugu jawaabayaan. qandho iyo qufac qallalan iyo waxay kuu sheegayaan calaamadaha lagu garto oo dhan. haddii aad weydiiso daawo ma leeyahay, jawaabta ugu soo horeysa waxa weeye ay ku siin doonaan wax daawo ma leh. laakiin maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno qalbi annaga jirkeenna ku dhex jiro oo u baahan in la ilaaliyo, oo cudurro fara badan ay ku dhacaan, oo u baahan mar kasta in cudurradaas iyaga laga dhaqo. qof kasta oo muslim ahna waxaa loo baahan yahay inuu sidaa isagaa isu fatasho. waxaan rajayn doonaa maanta hadduu ilaahay yiraahdo kelmadan iyada marka ay dhammaato in qof walba calaamadaha aan sheegi doonno uu iska baadho. hadduu qaar ka mida iska helana sidii haddii uu jiro isku arkaba degdeg dhakhtarka uu ugu carari lahaa inuu degdeg ugu laabto allah subxaanahu wa tacaala oo uu ka toobad keeno oo qalbigiisa uu dhaqo ayaan rajaynayaa idinka ilaahay. yaquulu ibnu lqayim raximahu llahu tacaala, alimaam ibnu lqayim wuxuu leeyahay min calaamati tawfiiqi illaahi lilcabdi, calaamadaha lagu garto in ilaahay addoonkaas khayrkii waafajiyey waxaa weeye inuu ilaahay waafajiyo qofkaas isaga ah sirtiisa hoose inay tahay mid wanaagsan, inuu qofka ku mashquuliyo daacada ilaahay, uu ku mashquuliyo in ilaahay uu qofkaas qalbigiisa ka nadiifiyo jirooyinka oo dhan, sida xaasidnimada, sida istustuska, sida cujbiga iyo iscajabinta, sida kibirka iyo sida ku dadaalidda inuu qofku ku dadaalo inuu dadka ka sareeyo oo uu caan noqdo. waxaasoo dhan ayuu ilaahay qofka qalbigiisa ka nadiifinayaa. qofka marka ilaahay uuna khayr inuu khayrka waafajiyo ama garab mariyo alle uu doonana quluubtiisa ayaa waxaasoo dhan loo daynayaa. markaasaa wuxuu noqonayaa qofkii qof dunuubta bannaanka ula soo baxa. wuxuu leeyahay nabigeenu sala allahu calayhi wasalam, kullu ummatii mucaafaa, ummadayda oo dhan waa la cafinayaa ilaa kuwa iyagu bannaanka ula soo baxa dembiga mooyaane. qofku marka uu bannaanka dembigii ula soo baxo ayada oo uu ilaahay asturay wuxuu fududaysanayaa ciqaabka ilaahay, wuxuu fududaysanayaa carada ilaahay. markaasaa qalbigiisii qallalayaa oo adkaanayaa. markaa kadibna waxaa dhimanaya qalbigiisii ayaa dhimanaya. isagoo hadalka sii wada wuxuu leeyahay alimaam ibnu lqayim, waxaa mararka qaarkood dhici kara in qofku dembi weyn oo kabiiraa uu sameeyo, laakiin kabiiradaa uu samaynayaa ay la xiriirto xishood iyo cabsi iyo weynin uu weynaynayo dembigan uu ku jiro iyo baqdinta ilaahay oo qalbigiisa ku jirto, ayaa laga yaabaa dembi weyn inuu sameeyo oo maa yulxiquha bisaqaa'ir. isagoo kabiiro sameeyey baa cabsidaas iyo inuu dembi ku jiro ogaalka uu ogyahay iyo cabsida alla uu ka cabsanayo iyo xishoodka uu alla ka xishoonayo baa laga yaabaa dembigii inuu saqiiro u noqdo. waxaa kaloo dhici kara cagsigaa dhici kara, qofka isagoo dembi yar samaynaya markaana ku dhiiranaya ilaahay oo wax haba yaraatee dana aan ka gelaynin, cabsida ilaahay meel iskaga tuuray, ilaahay aan ka xishoonaynin, ayaa dembigii yaraa uu samaynayaybaa wuxuu ku noqonayaa dembi weyn ayuu ku noqonayaa. arrimahaasoo dhanna meesha ay u laabanayaan waa qalbiga weeye. khalli dunuuba sagiiraha wa kabiiraha daaka tuqaa wasnac kamaashin fowqa ardi shawki yaxdaru maa yaraa. war dunuubta oo dhan ka har, kuwooda waaweyn ka har, kuwooda yaryarna ka har. waxaad noqotaa qof dhul qodax ka buuxda ku dul socdo oo kale oo lugta uu meesha uu dhigayo iska eegaya. laa taxqiranna sagiiratan, war dembiga ha yaraysanin oo ha fududaysanin. ina aljibaala min alxasaa, buurtaada aad aragtay waa quruurux iyo dhagaxaan yaryar oo isu tegay weeye. marka jiradu ama cudurka qalbiga ku dhaca ee jirada la yiraahday
iyada laftirkeeda ayaa kala duwan. waxaa laga yaabaa jirada asalkeedu inuu yahay nuqsaan inuu yahay. qofku hadduu jirado wuu daciifaa oo marka uu dhakhtarka ka soo baxo maalmo badan ayaa tabardarre ay kasii muuqataa. marka qalbiga jiranna waxa ka maqan waa diinkibaa ka maqan, waa naaqisu diin. qofka waxaa la yiraahdaa fitamiinaad buu u baahan yahay, fitamiin D buu u baahan yahay, fitamiin hebel buu u baahan yahay. war qalbigu hadduu waayo fitamiinka diinta ah hadduu waayo oo xishoodka alle iyo cabsida alle uu qalbigii waayo, qalbigaasi wuxuu noqonayaa mid jiran ayuu noqonayaa. alimaam ibnulqayim wuxuu leeyahay raximahullah, wuxuu leeyahay jirka bini aadamka xubin kasta ilaahay wuxuu u abuuray shaqo khaasa ayuu u abuuray. gacanta waxaa loo abuuray inay wax qabato, isha waxaa loo abuuray in wax lagu arko, dhagaha waxaa loo abuuray in wax lagu maqlo, carabka waxaa loo abuuray in lagu hadlo. xubin kasta wuxuu sharaf iyo qiimo ku leeyahay shaqadii loo abuuray marka uu qabanayo. hadday ishii jirato waxba arki mayso, haddii dhegihii ay xanuunsadaan waxba maqli maayaan. marka xubin kastaai marka uu shaqadii alla u abuuray uu hayo ayuu sharaf leeyahay. sidaa daraaddeed qalbigu markuu jirado waxaa ku adkaanaysa in uu garto wixii alle u abuuray oo ahayd alle garashadiisa, alle jacaylkiisa, uhilowga uu u hiloobayo ilaahay inuu la kulmo, u laabashada iyo towbadkeenka alle, iyo inuu waxaa adduunyada saaran oo dhan uu ka doorto middaa iyada ah. qalbigu hadduu jirado oo shaqadiisii gabo waxyaalahaasoo dhan ayaa qalbigiisa ka baxaya. marka sidii horey maalinta dhoweed aan u sheegnay, cudurada dadka ku dhacaa qaarna jawaarixda iyo xubnaha ayay ku dhacaan, qaarna caqliga ayay ku dhacaan. fitno oo dhanna waxay ka timaadaa walaalayaal, fitno oo dhan waxay ka timaadaa qofka oo ra'yigiisa ka hormariya sharciga ilaahay, hawadiisa iyo dookhiisana caqligiisa ka hormariya. maxaa yeelay midda koowaad oo ah qofka inuu ra'yigiisa sharciga ilaahay ka hormariyo waa aslu fitnati shubha. fitnooyinka shubhooyinka ah oo dhan waxay ka yimaadaan qofka oo ra'yigiisa ka hormariya sharciga ilaahay. fitnooyinka shahwada ah oo qofku waxyaalaha uu dookhiisa iyo hawadiisa ay siiso oo dhan uuna u aabayeelaynin, iyaduna waxay ka timaadaa qofka oo hawadiisa caqligiisa ka hormariya, qofka oo hawadiisa caqligiisa ka hormariya. sidaa daraaddeed fitnooyinka shubhada waxaa la iskaga difaacaa yaqiin iyo hubaal ayaa la iskaga difaacaa. fitnooyinka shahawaadkana waxaa la iskaga difaacaa sabar iyo adkaysi laga adkaysto ayaa walaalayaal la iskaga difaacaa. labadaa arrimood baana diinta hogaaminteeda iyo imaamnimadeeda lagu gaari karaa. wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun.